knn. koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan. haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane. wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane. intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan. si aad u hesho xubinta kalamaan ee ka baxda maalin kasta radio kulmiye fadlan subscribe saar janalkan knn. كلامي ترى ندين هيا ورتلا لغما مارمي سو تف daga shibne tufriixa la yiraahay hawi magama mineen taliyow lankum tala ayuuna leey mu asagu tashado intuu anaga noo talinayo warnigu Soomaaliland lama talinaye annagu nala talinaya inaga joog warnigu Soomaali buu la talinaya maxaad Soomaaliland uga baqiilaysaa talada arna la tala adaa ku nool iyadu kuguma noole waa sidaasay waxaan ku talinaya rag kuwaan wax ka aqoon rabbina aan ka baqanayn ayaa ruuxaya dunida inta Iiraan ka galayaan ku raacin waadani yaabana yaad la sugiyaabka ku hor yaalan maqli jire warnimay oo maanta arin aan la yaabaan arkay ununkaaba adiga hadda kula yaaban xaad sheegi rabtaa lan yahaasgaadi yahu ma yaasin ma leewa dheegi jari warka naga dhagaysta cirka nala aadinine anigoo lugaynaya maanta qorax kulul ayaa nin gaari wata ay gartay soo raac buu yiri control baan nimid askari taagnaa yiri kala wareeg ninkii baabuurka watay wuxuu yiri wadan xanuunsan baan isbitaal u wadaa ma laaba kare daaniyo askariga wuxuu ku jawaabay waxa doonta sidee ama taleefankaygu ha shanqaro ama kala wareeg kadibna wuxuu yiri ninkii nambarkaaga sheeg waxbuu tuuray anigoo arinta ka caraysan baan darawalkii la hadlay waxaan ku yiri war ma ciidankii amniga sugayay oo dawladda dalka u shaqaynayay baad sidii nin kontrabaan sida laaluus ku dhaafaysa markaas wuxuu igu jawaabay kursiga dambe fiiri islaanteedii oo xanuunsan baa saaran isbitaalan u wada meel kastana waa leega celi sayeela anigoo ku qanci waaye warkiisa ayaan gaarigii ka dago askariga u tagay wariyaa adigoo askari qaran ah oo amni u taagan miyaa gaari aadan aqoon wuxuu sido oodan baarinta laaluush ka qaadato baadaynaysaa baan soo musuqmaasuq maaha askariga wuxuu igu jawaabay musuqmaasuq nin qabow ku jira samaynayo nin qorax taagan ma ilaali karo meel sidin yaalo lan liyaale an luwaday warka warniyo wad waarantee askarigaasi ooda dhacmay sida u kala sameeyay baa loo kala guray uu kala guray warnimayo xaalada Soomaaliya waxaan ku soo xasuustay sheeko la yaab leh macallin ardaydii uu wax baray fasalka uu soo galay waxa uu weydiiyay Abi Jahl yaa dilay ardaygii koowaad wuxuu ku jawaabay macallin anigu ma dilin mid kale wuxuu ku jawaabay anigu shalay ma joogin macallin mid kale wuxuu yiri macallin iska daa inaan qof dilay waligay doora kama dhiijin war digaag dhaniyow warna dhageysaniyo saddex gelin warke macallinkii oo xanaaqsan ayaa maamulihii iskoolka u tagay wuxuuna ku yiri maamule ardaydan dad wax kala og maahan waxaan weydiiyay Abi Jahl yaa dilay hal qof oo ka jawaabana waan ka waayay maamulihii oo yaaban ayaa macallinkii gooni ula baxay markaas buu hoos u weydiiyay macallin ma hubtaa ardaygii Abi Jahl dilay inuu fasalka ku jiro hore waxa loo yiri yaxaas yaada dees yaqaan ninkii yira ka yeelima widaad ilaahay seela marka waxaan u malaynayaa dadkeenna majo iyo madaxba inaan qabaarmoog wadanahay war adal jumhuuriyadda Soomaaliland qabaarmoog maaha war heeda war ma haysaan madax iyo majo dadka la kala reebi maayo ayaantaana waxa soo batay miinooyin la gelinayo jidadkii suuqyadii iyo meel kasta dadku u marayo maanta ugu dambeysay wadada bakaaraha waa la geliyay dad masaakiin oo caashi saar waa ku baabeen shalay daynila waa la geliyay waa lagu baabay marka waxaan dhihi lahaa shacab iyo madax iyo ciidan iyo eedayna amniga aan soo tagno wariyaadhe markaas dalkaano dad la'aana in la helo miyaa la rabaa warnamiyo maysiin warsaday shirki maalin dhawaayti abniga linka hadalay baarlamaanka simbiriyaalo heesatiya ka baabay war shirki baarlamaanka abniga looga hadlayay sabtidii waa kii fashilmay soo maanta ma ahayn in la isugu yimaado war intaan la isugu imaan soo ma ahan in la tashto oo shirar gaargaar ah la galo go'aana laga gaaro sidii laga yeeli lahay saxaafadda maxaa la iska soo doonaya waa lagu diriramana la heshiin war gudoomiye maday mursal koox bagaaraan la shiri waana ma yaray shirki inoo qabsoomona la fade fashilki geerad inoo galool ma fadaw muhaarad yoonay muhaafid talashana xildhibaanadii shabaabka lagu sheegay mala kulmay gudoomiyuhu war shaata gaduudun isha tagaaran isha timid oo la sheegay ma shabaab inta laga sheegay dheegdiada warnimayo war ma haysaan hadda koor Cabdigarin Xuseen Guuleed asagoo ah wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga ayuu baarlamaanku u yeeray wuxuuna codsaday maalintii koobaad in saxaafadda banaanka looga saaro laakiin xildhibaanadu waa ka diideen gudoomiye Jawaarina wuxuu yiri min fadlikum nidaam kadibna
2 maalmood bay socotay su'aalo weydiintiisu 130 su'aalood buu saxaafadda horteeda uga jawaabay marka waxaan la yaabanahay Soomaalidu waxay tiraahdaa wax la qariyo qurun baa ku jire baarlamaankan muxuu ku diidan yahay saxaafadda war aan heelowshin eebshaaq eebduwa karoon dadka ma in haystaan isan war baarlamaankan baarlamaankii sagaalaad maaha mursalna jawaari maaha warnimada baarlamaanka waa looga horreeyay arrintan xafiisyada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarahana saxaafadda kol hore ayaa laga diiday war madaxweynuhu barigu mucaaradka ahaa saxaafadaadu u jeclaa yaa hadda ku diray war shirka garoowa ka furmay galmudugna ka maqan tahay waa maxay galmudug daniyaa matalaya war cabdiweli gaas baa matali jiray galmudug mana joogo bilaawan aadiyo ma looma dhama wallahi hana yeelayno waa bilaahan la yeelayno loomana diri karano mana matiro warniyow shirkan garow waa sheegaysaan jumhuuriyadda Soomaaliland kama qayb gelin war shirkii amniga madaxda qaranka iyo maamul goboleedyada oo la yiri xamaru ka furmaya aawe maxaa ku dhacay war amniga muqdisho in la sugo saw kama horeyso war heedahay waxaan weydiinaya amniga kii sugay kii loo sugay kii laga sugay see loo kala saaraya war abli hoob la sugo la fadaw dadka waa shal gorada bilaayay wadagiyoonay baas wadagiyoonay bulshada san ammaana ayaan taana wareeriya abniguna mas'uuliyad oo leeyahay cidii gudaweysana iyaday u taalaahe anigu waxaan dhihi lahaay abni qofkan ilaalihay ee dowgalay aasay u taal war sheekadana wadaa waa sheekadii aw bustaale barakadiisii weeyaan war maanta Jubbaland waxaa la diiday in la soo dhaweeyo ninuu sharaxna xilka madaxweynaha Jubbaland war aaw musharaxi Rabbiyo ka sii horeeyay bal lagu soo dhaweeyay Kismaayo ya Cabdirashiid xidig bal lama soo dhaweynin xaad sheegayso war ayaantan falfal xuna soo baxay saqiiradii in la gowracana bilaabatay aryaa saqiirada kufsaaya awal nafta noo kana hadana ma saqiira gowraca bilawda war anigu waran ciilkiisa la joogo waayaan maanta maqlay imaaraadku waxay dhaheen muwaadiniinteenu Soomaaliya ma tagi karaan haddana waxay ku sii dareen badooday ka kalluumaysan karaan hal sana ka soo wareegtay markii la qabtay boorsada imaaraadka war carruurta imaaraadku anaga caanaha loo siiyana horta nooga taga ilmaha baahan iyo maatada aradan isagoon aan qarin aayaha bulshada ninkii aqal la gala waa loogu iman arya macaanaad ka helay cadow badaada ka kalluumaysahay war caana ku arki maysid cadow dagaalkan raga wada cadowgiina cagta ka hoose